muslim dhammaan ehelka meeshaas ugu yimid oo darajo kastoo ay leeyihiin oo guddoomiyihii gob ugu horreeyo oo barofesorkii guddoomiyaha habargidirna ah beelaha habargidir guddoomiyahoodina ah mashaariicda waddooyinka iyo mashaariicda waxbarashadaba intanan maaragtay guddoomiye noogu ahaa oo nala socda oo aan u keennay waddadan dhibaatada ummaddan ku haysata inuu ogaado ayaan maaragtay waxaa kaloo nala socda ditoorkii maaragtay dhakhtarkii wey xuseen abshir iyo jaaliyadda rag badan oo maaragtay xibno badan oo qaar jaaliyadaha yihiin qaar ay yihiin xibin ka ah maaragtay qayb anuu ninkii leediibaan asaguna guddiga habargidir xibnahoodii ah dadkii jaaliyadda nala ahaayoo bannaankana ka mid ah waxaa nala jooga gabdhehe maaragtay xalimo qarad waxaa nala jooga shukri aadan fawsiyo aadan maaragtay aadan jaamac jacbar waxay u soo gurmadeen oo meesha yimaadeen iyo xildhibaankii maxamed iyo maxamed siciid yare xildhibaan maxamed siciid yare guddoomiyihii dhallinyarada xamar guddoomiyihii dhallinyarada gobolka mudug maaragtay cabdiqani marka dhammaantood ehelkaas oo dhan oo meesha jooga waxay u soo gurmadeen oo meeshaan u yimaadeen inay maaragtay dhibaatada ka jirta arkaan u soo gudbiyaan eheladooda bannaanka joogta iyo muslimiinta iyo dowladaha maaragtay waddanka ka jira intaba inay u soo gudbiyaan dhibaatada waddadan haysata waddadaas oo xiran oo awal guddoomiyo ay sheegeen dhibaatadii ka dhacday intaasoo qof inay maaragtay ama